السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ديال كلانتي وعن وناكسن إذا لهانتين بميل والبوة جوكتان iyo si walba waa noola socotaan buu waxaanu idin leenahay halkani waa TV-ga deegaanka Soomaalida ee SRTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan war degdeg ah oo haddana soo gaaray hogaamiyayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida oo shir saxaafadeed ay ku qabteen madasha shirarka ee qaryaandhoodana ayaa waxa ay sheegeen in gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed una wax ahmiyad iyo ixtiraam siinin hogaamiyayaal dhaqameedka kadib markii ay isku dayeen inay dhexdhexaadin ka sameeyaan wixii khilaaf ama madmadow ah ee soo kala dhexgalay isaga iyo dawlad deegaanka Soomaalida isla markaasna waxay ugu baaqeen dawladda federaalka Itoobiya in ay kala shaqeyso dawlad deegaanka Soomaalida horumarka ay ku tallaabsatay waxayna shacabka deegaanka Soomaalida ugu baaqeen inay ilaashadaan dawladooda iyo nabadgelyadooda isla markaasna aysan marnaba ogolaanin in heegadii shalay deegaanka gubtay aysan dib ugu soo laaban xukunka deegaanka waxaan idinku yeernay maanta inaan xaggan bulshada uga cadayno in deegaankeenu saad ogtahaan dhibaatooyin badan buu soo maray dawladihii hore iyo dawladihii dhexe tii militariga iyo tii boqortooyada inta Itoobiya isbedelku ka dhacayna dhibaatooyinkii ugu waaweynaa baa ka dhacay deegaankeena xuquuqul insaan oo la idinka sheekayn maayo shacabka iyo wariyaashaba uga sheekayn mayno marka waxaan maanta idinku yeernay waxa weeye in dhibaatooyin jiray in maalmahan qalalasa siyaasadeed oo deegaankeena ka jiray in annagoo odayaashii deegaanka ah ugaasyadii oo salaadiinta iyo ugaasyada naga maqana ay nagula jireen sida ugaas Mustafa iyo War Cabdille iyo ayaa waxaan qalalaasaha siyaasadeed ee jiray in aan annaga odayaal ahaan isxilqaanay isu nimid niri war maanta deegaankeenu meeshaynu taaganahay iyo meeshaynu ka soo baxnay maxaan odayaal ahaan qaban karaa dhaqankii siyaasadeed ee deegaankeena ka jiray shacabka Soomaaliyeed uu og yahay wuxuu ahaa wax laga xaliyo dawlad in shacab Soomaaliyeed ay wax xalstaan hata ka horma dhicin si taariikh cusub u bilaabato khilaafka xisbigeena iyo dhibaatooyinka ka jira dhaxdeena in la xaliyo ayaan isweydiinay odayaal ahaan waan isla qaadanay waxaan isla qaadanay koobaad in xalka siyaasadeed uu gacanta ummadda Soomaaliyeed ku jiro kadibna aanu qaadano inaanu anagu dhexdhexaadintaas sameeyno laba in intaanu u baahanayna cid kale in anagu u yeeranayna mooyee in dadka kale ay naga joogaan in khilaafka iyaga anagu dhamaysano annagu saad ogtihiin odayaal dhaqan baan nahay siyaasiyiin mani laakiin dalka odayaashoodii baan nahay cidu dalkani ka burburayo ayaan nahay dhibaata hadday timaado kuwii loo yeedhayaan marka intayna dhibaata iyo burbur inagu iman ayaanu u kacnay inaanu howlaha qabanno waxaanu la hadalay garabadiisa hayay ee xisbiga dimuqraadiga ka wada tirsanaa ee uu dhinac yahay gudoomiyaha xisbigu mudane Axmed Shide ahna wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo ku-xigeenkiisa mudane Aadan Faarax waxaanu la hadalay anagoo 200 oo odaya mudane Axmed Shide waxaan idhi odayaashaadii baan nahay waxaan rabnaa khilaafkan maanta soo baxay in la dhameeyo oo anagu Soomaali ahaan ku dhamayno idii wada hadashiina anagoo odayaashiina Axmed uu naga aqbalay wuxuu yidhi waan aqbalay odayaashaydii baa tihiin waan yeelay waxaan u tagnay Mustafa iyo ninka la yiraahdo Aadan iyagana waan u bandhignay waxay yiraahdeen waan aqbalay waan idin imanaynaa Axmed waxaan isku ogeyn inuu daraad baan la hadalay inuu shalay yimaado ama bari ama saadan baaruurtaan iman buu yiri anoo saa isku og oo xiisadii siyaasadeed ee deegaanka iyo dadkii ay yar degtay ayaa saaka markaan ula hadalay wasiirku wuxuu yiri waan idin iman doonaa waxaan ogeyn inuu maanta ama bari toole shalay ama maanta inuu yimaado waxaan noo cadaatay inuu marka wasiirku noo soo socon uu dhayalsaday hadalka iyaga odayaashiisa waxa uu dawlad ku yahay uu wasiir u yahay uu gudoomiye u yahay waa shacabka annaguna shacabka raggii hor joogayaasha u ahaabana wasiirka iyagii weyn
inaan nimaadno arrimaha iyagan khilaafka iyaga dhammaysano waan isu daynay in la dhammeeyaan isku daynay waxaasoo dhan axmed muuna dhag noo dhigin uuna yaraystay waan ku celinayaa marka waxaan isla qaadanay qodobadan halkan ka soo horay annagoo odayaashii waxaan xaggan ka caddaynaynaa in isku daygii wada hadashiintii khilaafka in la dhammeeyo in dhanka wasiirka axmed shide uu ka socon waayo guddoomiyaha xisbiga in shacabku ogaado waxaana leenahay wasiirku uuna yaraystay nama ictiqaadin ugaasyadiisii odayaashiisii iyo salaadiintii iyo garaadadiisii uu naga hoos kacay in ay arrinkaasi soomaali dhammaysato axmed uu diiday taas marka hawlo kale ayaa inay jiraan baa annaga xagga nooga caddaatay waxaan xaggan ka caddaynaynaa oo kale shalay tole deegaankeennu August 4 wixii ka dhacay waad ogtihiin xisbigan ummadda Soomaaliyeed baa dhisatay shacabka Soomaaliyeed baa iska leh wax nin gooni u leeyahay ma jirto xubnihii dawladdii hore iyo xisbigii nimankii hore ku jiray waa magaalada ay xukumeen iyo deegaanka ay xukumeen kuwii boobay ee dhammaystay ee sida guuldarrada iyo xuquuqul insaanka iyo dadka la kufsaday iyo dadka la dilay dadkii sameeyey in maanta haddana xisbigii ay sii ahaadaan maayahanba waanu ka hadlayna taa dhaliil weyn wey mar labaad marka in dibadaha iyo meel walba la isaga yeedho oo la soo daayo oo yimaadaan oo dawladdii qabsadaan dee taa shacabka Soomaaliyeed iyo odayaasha Soomaaliyeed way diideen shacabku inuu saa ogaado wey waxa la wadaa ninkii shalay xagga ayna dhigay in laga soo daayo xabsiga kuwii baxsaday ee hantida iyo shacabka la baxsadayna inay yimaadaan oo isa sameeyaan taa inaan cadayno waa u baahanahay waxaan cadaynaynaa oo shacabka ugu cadaynaynaa oo ugu baaqaynaa inay barbar istaagaan xubnaha isbedel doonka ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida raba wixii shalay toole jiray inaan la raacin raba in isbedelo raba in ummadda Soomaaliyeed masiirkeega iyadu ka go'o haddii wax dooranaysa iyadu ka go'o nolosheeda iyo horumarkeega iyo dhulkeega iyo diinteedana difaacay in maanta la isku xuquuqiyo hebel salaadu tukada hadduu salaada tukadana waa tuug waa urur hebel taasi dee xilligeygu way dhammaatay marka shacabku waxaan ugu baaqaynaa in xubnaha isbedel doonka ah ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ay barbar istaagaan nabadgelyadoodana ilaashadaan iyaguna ay hiil iyo hooba u fidiyaan waxaa kaloo xaggan uga baaqaynaa hay'adaha nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed afartaa bilood aynu soo dhaafnay ee isbedel ku yimiday nabad baa waddanku ku saxday deegaanka kaliya ee ra'iisul wasaaraha sida idaacadaha ka maqlayseen loo qiray in uu yahay deegaanka kaliya ee nabadgelyo Itoobiya ka ah waa deegaankeena deegaankaasina waxa keenay ciidana ma keenin booliisna ma keenin hay'adaha nabadgelyo keenay ma jirto shacabka keensaday nabadgelyadu waxay tahay isaga garanaya shalay waxaanu soo marraanu garanaynaa dhibaatooyinkii nagu dhacay baanu soo garanaynaa marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay nabadgelyadiisa ha ilaashado wixii aynu diidayno iyo wixii aynu fikirkeena ku cabirayna si nabadgelyo iyada sharciga iyo dastuurka la raacayo ayaan ugu baaqaynaa inay maraan laakiin wax qalalaasa waxa la rabaa kuwii shalay toole dhiigga sida gofanaha inoo shaqay in shacabkeena intay dhax galaan qalalaasa ka abuuraan ama qabiil ama wuxuu doonaa ka in laga digtoonaado wey oo nabadgelyadeena ilaashana maanta inagu ma nabadgelyo haysana taa in la adkeeyo waan ugu baaqaynaa shacabka waxaanu kala u baaqaynaa ra'iisul wasaaraha dalka iyo dawladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa oon leenahay noo tixgeli oon leenahay in ummadda Soomaaliyeed masiirkeegu iyadu ka tashato ayaheega iyadu ka tashato naguna taageertaan in khilaafka iyaga maanta jira inaan anagu dhammaysano iyadoo loo raacayo xeroosaadka ay leeyihiin xisbigu iyo shuruucda dalka iyo dadka dalku leeyahay dastuurka dawladda Itoobiya iyo dastuurka deegaanka annagu Itoobiyaan baan nahay deegaanka kaliya in xoog lagaga dhigin Itoobiyaan baan nahay annagu rabitaanka iyo Itoobiyaan ku noqonnay marka in laga shakiyo oo la yiraahdo deegaankii Soomaalida Itoobiyaan ma aha cid xoog nagu haysaa ma jirto
dastuurka Ethiopia qodobkiisa 39 baa xaqiijinaya rabitaanka iyagaan ku joognaa marka in Ethiopianimada shaki la geliyo la yiraahdo way go'ayaan oo nin walba cambaar loo sameeyo xilligayga way soo dhamaatay Ethiopia hawo cusub baa ka socota hawada deegaanada ka socota baan la midnahay marka waxaan leenahay hana loo tixgeliyo inaanu anagu aayaha iyaga ka tashano khilaafka iyaga jira anagu dhamaysano cidaan anagana hogaaminaysa anagu aan masiirkeega qaadano ra'iisul wasaaruhu isbedelku wadanka keenay baan taageersanahay ee xuquuqul insaanka la ilaalinayo ee wadajirka Ethiopia ee ku salaysan rabitaanka iyo hormuudku ka yahay rabnaa inaan anagu taageero u nahay manihin dad qowmiyadaha walaalaha nahay dhibaato ku haya taa waxa daliil u ah baabuurta magaalada Jigjiga ilaa Wajaale ka ganacsanaysa cid walba Ethiopian maanta Ethiopian isdhaxmaray marka in anaga rabitaanka iyaga shaki la geliyo oo la yiraahdo dalkii bay qas iyo balaayo ka wadaan oo wixii shalay Cabdi u dhoodhoobay bay hadana ku celinayaan taasi gaf bay nagu tahay nabadgelyadan anaga keenay shacab baa keenay odayaal baa keenay inay duntana anaga u taagan laakiin in lagu qadariyo inaan anagu hawlaha iyaga dhamaysano oo anagu masiirka iyaga ka tashano oo ummad jirtaan nahay aan hawlaha iyaga dhamaysano ra'iisul wasaaruhu tallaabooyinka koow ay ka tahay way isbedelkiisu marka waan ugu mahadcelinaynaa isbedelku Ethiopia ka keenay guud ahaan kan deegaanka iyagana waan ugu mahadinaynaa waxaan rabnaa in si ay u taabaqaato ra'iisul wasaaruhu si gooniya taageero noogu muujiyo inaan hawsha gaadhno waad mahadsantihiin odayaasha jooga ayaan u dhiibi doonaa oo iyaguna ka hadli doona bahda saxaafaddu way mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aqoon-yahankiisa haweenkiisa dhalinyarada war 4 bilood ee nafiska helay in la inaga baabiyo la rabaa taa in la inaga baabiyana inaynu inagu gacmaha isqabsano way inagu waxaynu isku haysana waa gooni laakiin maseerkeena iyo in uu nin inaga ina lamida ka taliyo taa way ceebto marka in la inoo tixgeliyo weeye waa maasantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saakay waxaan isugu kinyeeray oo shirkan jiraad aan u qabanay sidoo galaadka hore u sheegay bariyahan qalalaasa yaa ka soo dhaxbaxay xagga xisbiga qalalaasahaasna kulay waxaan isku dayn haddii aan nahay odayaashii deegaanka inaan bal qabanno oo aan dhex galno oo aan hagaajinno wixii ismaandhaaf oo ka jiro arrinta iyada muddo dhowr maalmood aan u taagnayn xukuumadda madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waan is aragnay wixii fikir aan qabnay waan u sheegnay arrinta inaan galno way nala qaateen kadib waxaan la hadalnay gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka maaliyadda Ethiopia isaga laftiisa waa nala qaatay maalintii hore wuxuu yiri waan idin soo dhaweynayaa aabayaasha tihiin hogaamiyaashii dhaqanka tihiin diyaar baan u hay waan idin iman ugu yiri dhowr maalmood kadib markaan ku noqonay saako u dambeysay wuxuu yiri anaa soo sheegi doona xilligan iman doono arrintan runtii waxay nagu noqotay arrin aad iyo aad fajicisan noogu noqotay burburisayna waantii aan rabnay inaan galno arrin burburisay noqotay wasiirka waxaan ahna gudoomiyaha xisbiga runtii nama qadarinin aad iyo aad 200 oo oday oo deegaanka Soomaalida ka mid ah oo guurtidii deegaanka ah ayaan kula hadalnay waxaba yaraatay qadarin uu noo geystay ma jirin marka sidaa daraadeed waantii annagu aan rabnay iyo maslaxadii aan geli lahayn waxaa hor joogsaday oo burburiyay gudoomiyaha xisbiga sidaa daraadeed gudoomiyaha xisbiga wasiirka arrimaha maaliyaddana Ethiopia Ahmed Shide Maxamed sidaa daraadeed waxaan dawladda federaalka u sheegaynaa in arrinta ay nagu dhacday to aan filaynana aanay ahayn haddana aan rajaynayno inay dawladda federaalka gacan naga siiso inaana la burburinin dawladda deegaanka maanta ka dhisan waxaa yeelay wixii aan ka soo baxnay waan isla ognahay waxaan maanta ku sugannahayna waan ognahay waxaa kaloo doonaynaa in ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ay nabadooda ilaashadaan oo aan laga burburinin maanta nabadgelyo darro ma jirto deegaankeena ka taagan
oo daraf ilaa daraf annaga iska daa Soomaalida Etoobiyaanka kala dhan yaa nagu dhax nool oo na dhax socdo annagana kilil kale maanta ku nool lahayn ma jiro 8 kilil oo kale maanta hal ruux oo Soomaali ku nool ma jiro waan soo wada qaxnay halka fadhinaa marka inta yar in laga burburiyo midaan qaadan kara ma aha midaan aqbalaynana ma aha waxaan codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed inay arintaa u istaagaan nabadgelyadooda ilaashadaan aan laga burburinin oo wixii hore loogu sameyn jiray aanay nagu soo noqonin mar dambe oo cidna soo faragelisaa aanay jirin dawladda federaalka bar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa inay howlahaas iyaga oo burburinta aanay ka qayb qaadanin oo aanayna faragelinin oo annaga aan xalkeena dhamaysano ragga dhalinyarada ee mas'uuliyiinta noo ah ama heer kilil ha joogaan ama heer federaal ha joogeen annaga arintooda xalinayno kuna filan kililada kalena sidaas ay yihiin annaga waxa naga duwi ee in la fargeliyo keenay ma garan karo mana qaadanayno sida daraadeed waxaan codsanaynaa in dawladda federaalka ay gacan ugu siiso hawsha aan wadno ee gurmadka ah nabadgelyadeena iyo maamulkeena aan ku saxarayno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لملا ህዝባችን እና ለተቀመጡት የጎሳ መሪዎች ሰላምታ አቀርባለሁ በመቀጠል ክልላችን ከአንድ 5 ወር በፊት ተከስቶ የነበረው ሁኔታ መግለጽ የማይፈልግ ከፍተኛ የሰው እልቂት የንብረት መቃጠል የሃይማኖት መደፈር መከሰቱ ምን ያህል ችግር እንዳስከተለ የሚታወቅ ነው በነበረው መስተዳድር በአቶ አብዲ መሐመድ ዑመር የሚመራው አመራር ያመጡት ችግር ዛሬ ለማስታወስ የሚያመጣን ምክንያት ማስታወስ የሚያስፈልገው ምክንያት ከዚህ በፊት የኑ ችግር የፈጠሩት እንደገና ያ ችግር እነዛው እንደገና ችግሩን ለመፍጠር የሚከሰቱ ሁኔታዎች በክልላችን ስለሚታዩ ነው በቅድሚያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ዛሬ የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ የተገኘው የሀገራችን የኢትዮጵያ ለውጥ በተለይ የኛ የሶማሌ ክልል ህዝብ በመጣብን ችግር ፌደራሉ ምን ያህል ጥረት አድርገው ዛሬ የተቋቋመው ዛሬ የሚመራን በድርጅትም ሆነ በአስተዳደር አቶ አህመድ ሺዴ በድርጅቱ ሊቀመንበር ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር የክልላችን ፕሬዝዳንት ሆኖ በዚህ ደረጃ ላይ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የተቻለው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአዲስ አበባ የጎሳ ሸማግሌዎች የክልላችን የጎሳ ሸማግሌዎችን በአዲስ አበባ ሰብስበው የሰጡን አደራ ተቀብለን ሁለቱም ለድርጅቱ ኃላፊ ሆኑትና ለክልላችን ኃላፊ ሆኑት አቶ መሐመድ ሺዴና ፕሬዝዳንታችን ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ብዙ ጥረት አብሮ አድርገው በክልላችን ሰላም ሰፍነው በክልላችን እንቀሳቀሱ የነበሩት እንደ ኦንኤልኤፍ ወደ ሀገር ተመልሰው በሰላም መሳሪያቸውን አስቀምጠው መግባት ሌሎችም ነገሮች በጥሩ መንፈስ እየሄዱ ያሉ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሀገራችን የሚቃወሙ ለውጡን የሚቃወሙ የተለያዩ ከውስጥ ሆነ ከውጭ ያሉት ይሄንን ለውጥ ለመቀልበስ የሚጥሩት ጥረት ከዛ ነፃ ሆነን በአሁኑ ሰዓት ክልላችን
ካሉት ክልሎች ሰላም ያሰፈነበት መሆኑ በፌደራልም ሆነ በማንኛውም ክልል የሚታወቅ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የነበረው በሶማሌ ህዝብና በኦሮሚያ ህዝብ መሃል የነበረው ችግሮች በአሁኑ ሰዓት ጥሩ መስመር ላይ መኖሩን እንደምናውቀው ይታወሳል። የነበሩ ችግሮች ይኑሩ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት በሁለቱ ድንበር ያለው የነበረው ችግር መጨረሻው ላይ አሁን አንዳንድ ጥቃቅን ችግሮች ቢፈጠሩም አስተማማኝ ሰላም መገኘቱ በጣም ደስታችንና እየሰራንም ያለንበት ስለሆነ ይህን ስብሰባ በገዛ ሸማግሎች በእኛው ማንም ሳያሳስበን የተፈጠሩ ሁኔታዎችን በማየታችን ይህንን ካሉት ከሶማሌ ክልል የጎሳ መሪዎች የተወጣጣን በመጀመሪያ ብዙ ተሰብስበው እኛን በተለይ አውጥተው በአሁን እዚህ ላይ የምንታየው እንደ ኮሚቴ አውጥተው ይህን ችግር በሊቀመንበራችን በአቶ አህመድ ሺዴ እና በፕሬዝዳንታችን መሀል ያለውን ሁኔታ ችግሮቹን የተከሰቱ አለመግባባቶችን እንድንፈታ ተነስተን ይሄው አራተኛ ቀናችን ነው እንዲህ ስንሰባሰብ። ቅድም እንደተገለጸው በሶማሌኛ እንደተገለጸው በዚህ ጉዳይ የተሰባሰብ ነው። ሁለቱንም አነጋግረን በቅድሚያ ስብሰባ ላይ ሆነን አቶ አህመድ ሺዴን አስቀድመን የኛ ሊቀመንበርና የፌደራል ሚኒስትራችን በቅድሚያ እሱም ፍቃደኝነት ጠይቀን ተቀብለውን ከዛም በመቀጠል ፕሬዝዳንታችን ጋር ቀርበን እንደዛው ጠይቀን ተቀብለውናል። የተቀበሉንን ከግብ ለማድረስ ጥረት ስናረግ ግን በአቶ አህመድ ሺዴ የሊቀመንበራችን የድርጅቱ ሊቀመንበርና ሚኒስትራችን እኛን ይህን የማያል ሸማግሎች ያለውን ጊዜያዊ ሁኔታ እያወቀ ጥሪያችን ባለማክበር የጀመርነው የሰላም ጥረትና የመግባባት ጥረት ከግብ ሊደርስ ባለመቻሉ በጣም ያሳዝነናል። በማሳዘን ብቻ ሳይሆን እሱም አቶ አህመድ ሺዴ ዛሬ የያዘው ስልጣን ለዚሁ ህዝብ ስለሆነ በፌደራል ደረጃም ቢሆን በክልላችን ስም የያዘ ስለሆነ እኛም ማክበርና ሰላሙን ሁኔታ ማክበር ሲገባው መተው በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት የምንፈታውን ነገር ይመጣለሁ፣ ትላንት ይመጣለሁ፣ ከሰዓት ይመጣለሁ፣ እንደገና ነገ ጠዋት ይመጣለሁ፣ እንደገና ዛሬ ስንጠራው ደግሞ አይ በሆነ ጊዜ እነግራቸዋለሁ መምጣቴን የሚል ጉዳዩን እንደ ብዙ ግምት ሳይሰጠው እኛንም ግምት ሳይሰጠን በዚህ የጀመርነው ሰላሙን ሁኔታ የአካባቢያችን ሁኔታ ከግብ ልናደርስ አልቻልንም። ይህ ጉዳይ እነዛው ከዚህ በፊት ይህን ህዝብ ለአደጋ የዳረጉት ሰዎችም የቀዳዳና ቀዳዳ ማግኘትና የመንቀሳቀሱ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ፈጥሯል። ይሄ በተለይ በህዝባችን ወይም በአሁኑ በአቶ ሙስጠፋ ፕሬዝዳንታችን ሙስጠፋ ያለው እስካሁን በዚህ በ5 ወራችን ውስጥ ያለው ሰላም እና ሁኔታ ዛሬ የምናየው ሁኔታ ምን ያህል ለውጥ እንዳለው እና ወደፊትም በጎኑ ቆመን ይህን ሰላም በጥሩ ሁኔታ ሀገራችን ወደ ሰላምና ወደ ለውጥ ሽግግር እንድታልፍ የምናደርገውን ጥረት በተለይ በአቶ አህመድ ሺዴ ሊሳካልን ባለመቻሉ በጣም አዝነናል።
አሁን ለምሳሌ ሞያ ማን ነው በዚህ በኦሮሚያ በኩል ያለው ችግር የነበረውን ማታ ስናይ የጎሳ አባገዳዎች ተሰባስበው በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ሲጨርሱ በቴሌቪዥን እያየን ነው። እኛም እንደዛው በክልላችን ያለውን ችግር ካሉት ከሚመሩን ጋር ያለውን ችግር ፈተን እንደዛው ህዝባችን ወደ ሰላም እና የያዙትን የሰላም ጎዳናና የልማት ጎዳና እንድናስይዝ ነበረ። በሱ በኩል ባለመሳካቱ አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምንጠይቀው ይሄ የጀመርነው ሁኔታ አሁንም ቢሆን እንደሌላው ክልል በአገር ሸማግሎች እርቆችና ማሳራቅና ማቀራረቡ ሁኔታ በእኛም እንደዛው እንድንቀጥል አሁንም ጥያቄያችን በእኛ ክልል ያለውን ሁኔታ እኛው ሸማግሎች የጎሳ መሪዎች እንድንፈታና የተከሰተውንም ሁኔታ ያለ መግባባታቸው ሁለቱም ልጆቻችን ናቸው። ያለ መግባባት የተፈጠረውን ሁኔታ አሁንም ቢሆን በእኛው እንዲፈታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን እንጠይቃለን። በእኛ በኩል ደግሞ ህዝባችን ክልላችን ካሉት ክልሎች ዛሬ ሰላም እና ከጎረቤትም ጋር ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ዛሬ የሚታየው በጅጅጋ የሚታየው ሰላምና ሁኔታ በዚሁ እንዲቀጥልና የብሔር ብሔረሰቦች አብሮ የመኖሩ ሁኔታ በድምር ያለው ከኦሮሚያ ጋር የሚያዋስን ይሁን ከአፋር ጋር የሚያዋስንንም ቢሆን በሁሉም በኩል እኛ ሸማግሎች ለእንደዚህ አይነቱ የሚመለከተንን ግዴታችን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን ለክልላችንም ለክልላችን አመራርም ሆነ ክልላችን መመሩን ሆነ ለፌደራልም ቢሆን ለሌሎችም አጎራባች የሆኑ ክልላችን አጎራባች የሆኑት ክልሎች ለሰላም ቆመን አምረን እንደምንሰራና አገራችን የያዘችውን የለውጥ ጎዳና በሚፈታተኑን ፈተናዎች አንድ ላይ ሆነን በክልል ሆነ በፌደራል ደረጃ አገራችንን ለግብ ለለውጥ እንድናደርስ እየጠየቅን በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምንጠይቀው እኛም ሸማግሎች ከዚህ በፊት የሰጠህንን አደራ ተቀብለን እስከዛሬ በዚሁ 5 ወራት ውስጥ የታየው ሁኔታ በዛው እንድንቀጥል የሰጡንን አደራ አሁንም እንድንቀጥል አክብረን እናመለክታለን። አገራችን ሰላምና ልማት አላህ ያድርግልን። በሀገራችን ያለው ሁኔታ ከዚህ ለውጥ ጋር ትግል ያለብንን ሁኔታ አላህ አገራችን ሰላም ያድርግልን። መንግስታችን የፌደራልም ሆነ ክልላችንም ከሌሎችም ክልሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ሰላም አላህ ያድርገው እና በሰላም ለመኖርና ከመንግስታችን ጋር አብረን እንድንሄድ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ እንገልጻለን። አመሰግናለሁ።